صاحب هذا بيجك كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين. بسم الله. عشر كان maanta wuxuu ku saabsan yahay isticmaalka bacrimiyaha loo yaqaano NPK iyada oo loo eegayo cimriga geedka. Waxaa lagu talinayaa in la raaco tilmaamaha soo socda si loo gaaro natiijada ugu wanaagsan. Kow, marka la abuurayo beerta waxaa carrada lagu daraa bacrimiyaha NPK oo lagu daray TE oo isla eg. Wariyaha isla eg waxaanu la jeednaa NPK ayaa waxay noqonayaan tiro isla eg oo waxay noqonayaan 20 ama waxay noqonayaan 10 ama tiro kale ayay noqonayaan. inta waxay leeweheliya TE markaan leenahay 20 waxa la jeednaa inta waa 20 B-duna waa 20 K-duna waa 20. TE waa trace element ama micronutrient waxa loo yaqaano waa curiyaasha kale ee inta yar looga baahan yahay. labo xusuusno lambarka hore waa nitrogen kan dhexena waa phosphor kan ugu dambeeyana waa potassium. saddex soo bixida dalagga kadib waxaad isticmaalaysaa bacrimiyaha la yiraahdo NPK oo lagu daray TE oo ah trace element oo nitrogentu ku badan tahay si qaybaha cagaaran ee geedku u koraan 10 ama 15 maalmoodba hal mar ayaad siinaysaa. afar marka dalaggu ubaxa saaro waxaad siinaysaa bacrimiyaha la yiraahdo NPK oo lagu daray TE oo ah trace element oo fosfoorku ku badan yahay 10 ama 15 maalmoodba mar ayaad siinaysaa. fiiri waxaan niri fosfoorku ku badan yahay ayaa niri waxaad fiirisaa sawirka fiiri halkan waxaad arkaysaa lambarka hore waa 10 kan dhexena waa 20 kan dambana waa 10 kan hore waa nitrogen kan dhexena waa fosfoor kan dambana waa potassium sida daraadeed waxaa ku badan fosfoorka ayaa ku badan. sidoo kale halkan hoose hadaad fiiriso calcium oxide 4% ayaa ku jirta sulfurna waxaa ku jirta 7% halka magnesium ay ku jirto 3%. waxaad arkaysaa bacrimiyaha kanada sawirkiisu halkan noo saaran yahay waa NPK waxaa kaloo weheliya saddexdii element ee ayagana aan ku sheegnay inay yihiin secondary macronutrient oo kala ahaa calcium sulfur iyo manganese ayaa kaaga muuqda halkaas. 5 marka dalaggu miraha saaro ilaa la goynayo waxaa siinaysaa bacrimiyaha la yiraahdo NPK oo lagu daray TE oo ah trace element oo potassiumku ku badan yahay 10 ama 15 maalmoodba mar ayaad siinaysaa. hadda sawirkan kala fiiri bacrimiyahan waa 10 kore waa nitrogen 10 dambana waa phosphorus 20 kuna waa potassium ka ku badan plus TE waxaa loola jeedaa trace element horaan soo baranay elementyada ka kooban yihiin elementyadan hoos ku qoran daiman waxaa ku jiri kara TE da halkan ay ku jiri karaan waxaa kale oo ku jiri kara secondary macronutrients sida calcium sulfur iyo magnesium ayaa iyaguna ka mid ahaan kara. fiiro gaar ah waxaa habboon in lagu daro 1 litir oo biyo saafi ah 2 gram oo bacrimiyaha NPK ah nooc kasta oo ahaadaba macnaha afartii noocan soo baranay mid waa isla eka mid nitrogen-ta badnayd mid potassium-ka badnaa midna phosphorus-ka ayaa ku badnaa marka nooc oo ahaadaba 2 gram yani 1 litir oo biyo saafi ah waxaa lagu darayaa 2 gram oo NPK ah nooc kasta oo ahaadaba iyo 1 gram oo ah magnesium sulfate iyo 1 gram oo ah calcium. intaas markaad isku darto plus TE waxaad helaysaa
maxaa yiraahdaa 12 curiye oo ugu muhiimsan oo dhirtu u baahan tahay 12 curiye la sheegaya waa maxay saddex waxa weeyaan primary macronutrient saddexna waa secondary macronutrient waa 6 oo waxay kala ahaayeen NPK calcium sulfur iyo magnesium iyo micronutrients sida copper iron manganese chlorine nickel molybdenum iron kuwaas iyada weeyaan marka hal litir oo biyo ah waxa lagu daraa 2 gram oo NPK ah 1 gram oo magnesium sulfate ah iyo 1 gram oo calcium ionka calcium uu ku jiro magnesium sulfate halka waxa kugu jira magnesium iyo sulfur ba halka ku dhan qodobka labaad waxa suuragal ah in la siyaadiyo gram ama lagu celceliyo si loo helo faa'iido sare iyada oo isha lagu hayo koriimada geedka saddex bacrimiyeyaashu shardi ma ahan inay waafaqaan sida tusaalaha ku qoran laakiin way ka duwanaan karaan okay qodobka labaad hadaan dib u milicsano waxa lagu yiri waa laga ziyaadin karaa gramka macnaha 2 gram ayaa niri iyo 1 gram iyo 1 gram baa la isku daray oo liter biyo lagu qasay ayaa niri waxa weeye hadii baahi badan ay jirto gramyada waa la badin karaa sidoo kale hore waxaan u soo sheegnay 10 ilaa 15 maalmoodba mar ayaa la siinayaa ayaa niri bacrimiyaha laakiin haday baahidu badan tahay frequency-ga ama ku celcelinta waa laga badin karaa waana laga yareyn karayaa midaas ayaa la rabaa in lagu tilmaamo جزاكم الله خيرا waxaan rajeynayaa in aad wax uun ka faa'iideen qof walba oo walaalo wax ka faa'iideen waxaan ka codsanaynaa inuu san ilaabin inuu yiraahdo subscribe inuu like yiraahdo iyo inuu asxaabta kale u share gareeyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh